السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودyaal ku soo dhawaada warbixin kooban oo ka diyaarinay faa'iidada ay leedahay socodku. Haddaba faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo socodka waxaa ka mid ah inuu muddo dheer ku ilaaliyo jirkaaga mid caafimaad qabana uu ahaado. Cilmi baarayaal ayaa sugay in jimicsiga socodku uu awood weyn siiyo jirka, murqaha iyo maskaxdaba. dadka badanaa socda ama lugeeya kuma dhacaan xanuunada kansarka, dhiigkarka iyo macaankuba. sida lagu ogaaday cilmi baadhis la sameeyay, dadka socda badanaa kuma badna xanuunadaynu ku soo xusnay kor iyo sidoo kaleba wadna xanuunka, faaliga iyo macaankuba. jimicsiga iyo socodkuba waxa ay siiyaan ragga iyo dumarkaba awood jinsiyadeed. haddaba inaad maalin walba socotid waxa ay jirkaaga ka dhigaysaa mid xooggan oo caafimaad qaba. dhammaanba faa'iidooyinka aynu soo sheegnay waa kuwa aad tijaabin kartid. ku dadaal maalinkii walba inaad socoto ugu yaraan 30 daqiiqo ama 40 daqiiqo. taasi waa talo weyn oo caafimaad ahaan ku anfici doonta. haddii aad tahay qof aad u buuran, waxaad u baahan tahay inaad lugayso maalintii ugu yaraan 4 kiiloomitir si aad hoos ugu dhigto miisaanka jirkaaga iyo sidoo kale baruurta Ilaahay kugu manaystay. socodku sidoo kale waxa uu ka qayb qaataa qashin saarka jirka. haddaba muuqaalada noocan oo kala soco